Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Aleeli Tutorials, waa channelkii YouTube-ka uga barateen soo gudbinta aqoomaha kala gedisan. Maanta waxaynu soo qaadanay trade leadership ama personality-ga hogaamiyaha qofka ahi baadhitanadii laga sameeyey. Maanta waxaynu eegaynaa maadaama aynu marka hore xoogga soo saarnay baadhitaanadii la xidhiidhay hogaamiyaha dabcigiisa iyo dhaqankiisa oo xoogga la saaray inuu ninkaasi noqon karo qof inta badan dhalashadiisa la xidhiidha oo dabciyan u dhashay hogaaminimo oo awooddan iyo baawarka iyo masculinity-gan iyo daraasadaha faraha badan laga sameeyey dhaleecayn badan ay yeesheen. Markaa waxaa soo baxay nin la yidhaahdo magaciisa Robert Curtis 1950gii ayuu qoraalsna sameeyey, baaritaano uu sameeyey, daraasado fara badan oo uu hogaamiyaal ku soo wareystay, qaab daraasadeed oo ka duwan tii hore uu sameeyey, questionnaire iyo tijaabooyin fara badan uu sameeyey. Darteed waxaa u soo baxay isagana 3 qodob oo aan soo sheegi doono oo ku salaysan mid ka duwan baaritaanadii iyo daraasadihii la sameeyey. Marka maanta daraasadeedana waxaynu diiradda saaraynaa bal xirfadda hogaamiyuhu leeyahay. Skill leadership waxa loo yaqaano skill leadership. Markaa 1950gii waxaa helay Robert Kurtz daraasadda uu soo saaray uu weliba ku qoray journaal lagu magacaabo Harvard Review ayuu daraasadda qoraalkeeda ku sameeyey. Marka wuxuu kaga hadlaynaa sifooyin ku salaysan xirfad in lagu baran karo si qofku hogaamiye u noqdo. Xirfaddaasoo markaasi aqoonta xirfadeed ayaa waxay u saamaxaysaa geysinaysaa inuu dad fara badan oo ama warshad ka shaqeeya ama urur kale ka shaqeeya ama siyaasadda inuu ummadda u hogaamiyo ama tiimkiisa ama bulshadiisa ama shaqaalihiisa u hogaamiyo si magaranaysa xirfadeed oo aqoon uu kasbaday oo uu leeyahay know-how darteed uu magaranaysaasi uu ku hogaamiyo. Markaa hogaamiyaashu waxay ku baysan tahay oo aasaas u ah ayuu ninkani leeyahay xirfad skill ayaa aasaas u ah. Marka wuxuu soo saaray 3 qodob oo loo yaqaano 3 qodob oo kala ah technical skill xirfad tiknikadeed iyo conceptual skills iyo hab fikradeed baan odhan karaa xirfad fikradeed oo lagu dhiirigelinayo dabciga dadka inay qayb ka qaataan hawshii la qaadanayey oo uu ku gaargareeyo, iyo tan oo ah interpersonal skills oo xirfad ama human skills wax la yidhahdo. 3 xirfadood ayuu soo saaray oo yidhi ayaa gundhig u ah qofka 3 laga helo inuu noqonayo hogaamiye iyo leadership. Markaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore warday dhaxal laguma heli karo, laakiinse hogaamiye waxaa lagu noqon karaa barasho, aqoon la helid iyo daraasad oo qofku 3 shay oo dhinacii fikirka, dhinacii tiknoolajiyadda iyo dhinacii iska dhexgalka bulsho intaba isku darsaday ayuu hogaamiye ku noqonaya. Haddaba maxay tahay technical skillsku? Technical skillsku waa kartida uu hogaamiyuhu uu ku fahmayo inuu aqoon khaasa uu la yeesho tiimkiisa iyo bulshadiisa uu ku howlgeliyo dhinaca shaqada, oo isaga inuu yahay nin cilad bixiye ah oo aqoontii tiknoolajiyadeed aad u yaqaano. Sidaasunbaa nin hogaamiye oo shaqaalihiisa solve problemkii iyo dhibaatada tiknikad ka saari karaynin de ma noqon karo hogaamiye ayuu leeyahay. Hogaamiyuhu waa nin wax fahmaya oo u fahmaya aqoonaha khaaska ah ee la xidhiidha in shaqadii tiimku ay qabanayeen ee tiimkiisu qabanayeen. Marka sida magaranaysa warshadaha waaweyn laga shaqaynayo,
sida robotska ku shaqaynaya, sida loo cilad bixiyo. Waa in shaqaalihiisa iyo tiimka uu hogaaminaya waa inuu ay noqdaan kuwo uu kaga sabato bixiyo xalin iyo mashaakilaadka ku howl yimaada ee xagga teknikada ah. Waxay kaloo aynu eegaynaa qaybta labaad uu soo saar u leeyahay waa human skills. iyaduna waa kartida uu shaqo ee uu doonayo inuu shaqaalihiisa fahamsiiyo, shaqaalihiisa uu magaranaysaa ku barbaariyo oo ku shucuur geliyo oo jeclaysiiyo. waxa weeyaan ayay noqonaysaa human skillku waa xirfadda uu leeyahay bal dadka laftooda siduu usoo jiidan lahaa, wax uga dhaadhicin lahaa, u fahmi lahaa, shaqada u fahansiin lahaa, ku dhiirigelin lahaa shaqada inay qabtaan. waxaa kaloo ku jira inuu leeyahay communicationkii, xiriirkii wanaagsanaa, dabeecaddii wanaagsanaydna inuu leeyahay oo ahayd in uu maaragta cilad bixinta iyo mushkiladda ku timaada ee farsamada xagga cilada ku timaada inuu cilad bixiye yahay oo xalinayo wixii conflict ah ama dhibaatooyin ah. waa inuu kor u qaadayaa dhismaha bulshada xirfadoodana, waa in tababarkii waxyaaba badan oo noocaasi. markaa nin hogaamiyuhu waa nin bulshadiina ku dhex jira, shaqadiisa iyo tiimkiisiina ku dhex nool oo aan ahayn nin ka dhex baxsan. kaasaa markaasi uu noqonaya uu ka soo ururiyey uu markaa baaritaanadii faraha badnaa uu sameeyey, waxa uu rasalkiisii iyo natiijadiisa soo saaray. qaybta labaadna inay noqonayso human skills, waa xirfadda labaad ee magaranaysaa xirfadayaasha saddexda ah. tan saddexaad ee u dambeysa waxa weeyaan waa xirfadda loo yaqaano conceptual skills. iyaduna waa kartida ee uu leeyahay fahamka istiraatiijiyadeed ee lagu xalinayo mashaakilka. waa inuu fiiro dheer leeyahay oo markaasi aan ka niyad jabin in uu magaranaysaa si istiraatiijiyad u sameeyo heerarkii la marayay ee lagu xalinayay maxay problemka shaqaalihiisa haysta, ama haddii ciladi soo foorsato warshadiisii, waa inaynu markaa uu sameeyo decision making, uu la sameeyo dhammaanba hawshii uu hayo inuu go-aano wanaagsan oo geysiinaya vision dheer oo keenaya in hawsha sidaa iyo sidaa loo fulinayo oo waxa uu decisionno cadcad oo lagu xalinayo waynu leeyahay, yacni istiraatiijiyad fog oo garanaysaa waa inuu ku sifoobo hogaamiyuhu oo ku salaysan inuu la yimaado fikirkii iyo afkaartii wanaagsanayd maaragta warshadda lagu howlgelinayay. waxaa ka mid ah fikirka conceptual skillska in ay ku jirto wax loo yaqaano inuu hogaamiyuhu leeyahay critical thinking. waa inuu critical thinking leeyahay, fikir xalliyeed oo hawsha u dhabar adeegaya oo sameynaya creativity ama hal abuur uu yeesho oo se matalan kale innovation, inuu hawshii taallay in uu halkii wax ku kordhin karo, ama inuu invention yeesho oo wax cusub ikhtiraco oo la xidhiidha arrimaha bulshada ee la dhigayo fikirka istiraatiijiyadeed. marka gabagabadii natiijadu soo saaray kaas aragtidiisa waxa ay ku beesgaraysan tahay oo aasaas u ah fikirka hogaaminimo ee hogaamiyuhu leeyahay oo lagu horumarinayo uu soo saaray, uuna kaga duwan yahay aragtiyooyinkii horeeto ee ku salaysnaa in hogaamiyuhu uu dominanceka iyo authorityga iyo bawernimada uu ku helay wax isagu ku dhashay oo heredity-ha iyo isagu leeyahay. may taas maaha, waxaa lagu hogaamiyuhu ku horumari karaa uuna ku noqon karaa labadan shay oo ah learning, inuu yahay nin aqoon leh oo wax bartay oo daraaso sameeyey oo dee magaranaysaa jaamacada ka soo baxay oo wax bartay, knowledge fara badan yeeshay, cilmi yeeshay, iyo experience oo ah waayo aragnimona ku darsaday, ayaa wuxuu noqon karaa nin hogaamiye ah. taas uu kaga duwan yahay sidaan tilmaamay kuwii hore uu sheegayay in magaranaysaa hogaamiyuhu noqon karo kuwa uu isagu ku dhashay. marka natiijadiis marka waa learning and experience, isaga oo saddexdaa ideyana fikradeedna keenay. marka kaas fikirkiisu intaas ayaynu kusoo
gaabinaynaa halkaas oo aan eegi doonno markaasi waxa soo socda oo xirfadaha kale ee gedisan ayaynu insha allah ku tallaabsan doonaa marka khayr waa idiin rajeynayaa. Asalaamu calaykum.